ninkani waxa uu galay khaladkiisii ugu weynaa waxa uu soo dhacay guri uusan lahayn hadda waxa ku soo yaacay eedii guriga ilaalinaysay ama security-gi wuxuuna bilaabay inuu iska dhaciyo oo iska celiyo laakiin ma awoodo wayna ka badan yihiin mid ka mid ah eeyda ayaa gacanta ka qaninay halka kalena ku qaylinaya waxaan u jeednaa inaysan halkan cidi ka dhoweyn laakiin imika shaarkii ayay kala baxeenba waxaa jirta laba nin oo xagga dambe joogta kuwaas oo isku dayay inay ka badbaadiyaan balse iyagu ma awoodaan inay gidaar ka soo dhacaan hadda wuu isdhiibay wuxuuna ogolaaday in la cuno surwaalkana laga bixiyo maadaama shaarka lagala baxay nimanku waxay bilaabeen inay ka fujiyaan iyagoo biyo iyo wax soo daadinaya balse eegu ma aha mid sidaan ku tegaya degan oo kaniishanig hadda tabartii ayaa ka dhamaatay